بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ummadda islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummadda Soomaaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay berri tahay ciidii adxa ee sanadka hijriyada 1440 waxaan u hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda Soomaaliland sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore xajka taariikhda intaynu maqalay waxa uu yahay sanadkii xajka loo tagi waayay cudurka adduunka aafeeyay ee covid ilaahay hay naga badbaadiyo dhibaatada salaahay naag mariyo wixii islaama iyo dalkeenaba ilaahay waa inoo rooyahay cudurku waa jiraa waa se taag daran yahay soo dadka u dhibay ilaahay waa inooga khafiifiyay waa se jiraa dad badan oo dhintay wixii dhintay Allah u naxariisto marka in wali laga digtoonaado oo la isdhigano waa daw ilaahay se waa inoo sahlay dhammaan shaqooyinka oo ku noqonaynaa iskuuladu waa lagu noqonayaa nolosha caadi ahayd baynu wadaynaa waanu jiraa waxaa sidee waajiba inuu taxadirkiina wadno oo aad sidii hore inuu cudur jiro la ogaado oo faraxal iyo wixii laga gaashaanay laga gaashado ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dadka wixii buka ilaahay inoo caafiyo wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhiban ilaahay dhibta ka saaro qof walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn oo ilaahay خوف ذيو دل يدد يدويبا الله يباركيو دل كينا كي هورا مرا برواقا نبضون ددكي سو غوري هي وحو قبسان الله كدغو انت aynu hayna alahnu siyaadiyo meelaha ay ka jiraan shaqaqooyinka dad bina aadam meelu joogaba oo iskhilaafaya khilaaf waa jiraya ma dhamaanaya ee u badan deegaan yar oo la isku haysto barkad meel laga qodo iyo xoolo daaqeen iyo beer iyo jago iyo khilaafaadka u badan markii la dirsay khilaafaadkeena iyadana dalkuna waa ugu filayaa waana wada leenahay si meel qabto marka la isqabto haloo maamulo khilaafku markii la hadlo dadka waayeelka ee kolba halka degan rag iyo dumar roolo iyo caalimba inta la isugu tago khilaafka halkiisa lagu hayo hal laga daayo khilaaf yaro kasto yimaado ama dooda timaado ee loo rogayo sida qabaliga ah dood kasta oo qaranka ka dhaxaysa in loo rogo qabiila ma aha shaqada qaranka wixii la isku qabsaday shaqa qaran qofkii hayay in la qabiileeyo ma aha saa dawladda kuma dhismaan waxaanu doonaynaa inuu qabiilka ka guuro oo u dhawaano dhinaca qarannimada oo qaranka ku maamulo wax walba si qarannimada loo eego waxaan ku talinayaa dadku doorashada inay arkaan arrin dal ahaan aynu doonayno inaan hore ugu maro oo dadka inta wanaagsan ee hogaamin kartaan ku doorano heer walba heer dowladda hoose to baarlamaan to madaxtooyo waanu caqliga ku fikraa waa inaynu ka yareynaa cunfiga oo ay noqotaa iyadoo oo dadku saaxiibo iyo walaalo iyo deganaansho yihiin in la ilaawo waare jaamacada cumar ka wanaagsan aan doorano bas waxaanu u soo jeedinaa dadka doorashada doonaya inay joojiyaan xamaasadda faraha badan ee aan loo baahnayn ee kharash leh ee colaad leh ee qabyaalad leh inay kaga doorbidaan doorasho kharash yar walaaltinimo leh war waxaa xasaradii qaban karaa inuu qabana aynu halka ka bilowno oo nu wax badan ka bedelo waxyaalaha cabashadu waa waajib qof baa caban kara deegaan baa caban kara dadku way caban karaan oo siyaasadda ka caban karaan oo amniga ka caban karaan wixii jira laakiin way noqotaa day cabasho toosinayso way xog toosinaa cabashada way noqotaa mid ay wararka waxba ka qaldan aynu toosino maanta tooskana way birta aan toosino hal inta aan qabano oo aan cunfi iyo buuqar ku gelin dalku guud ahaan waa nabad ilaahay mahadiyo joogna waa isoo gol lahay inteena badan khilaafna waa caalamka dhan jira waa caadi aan dalka siyaasadiisu waxa weeye inaynu ummadda islaamka ah iyo ta aan islaamka ahayn caalamka oo dhan nabad ku dhaqano waxaan nahay dal yar oo ka soo baxay dhibaatooyin badan oo doonaya inuu dhismo oo tacliintiisa hore u mariyo
oo caafimaadkiisa hore u mariyo oo nabadiisa hore u mariyo oo macdanta iyo khayraadka dhulkiisa la soo baxo taana waxaanu ku heli karnaa nabad dariska oo dhan aynu nabad kula dhaqano caalamka oo dhan nabad kula dhaqano qofkii aan isagu dhibaato inoo geysanayn qofkii inagu soo xadgudbaaya hadday qarannimadeena tahay hadday dhaqaalaheena tahay hadday nabadeena tahay waxaa waajiba inaynu u digno hadduu qaadan waa in iska qabano bas caalamka oo dhan ku qabno diintaa ku ogol difaacu nafsiga haddii gurigaaga iyo carruurtaada iyo reerkaaga haddii dalkaaga iyo khayraadkaaga iyo talada lagugu soo duulo waa waajib inaynu daafacno intaasina waa iga waano guud ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkaa sanadkiisa inuu khayr iyo barwaaqo iyo bashbash lagu gaarsiiyo mar labaad hambalyo somaliland gudo iyo dib meelay joogtaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu